السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت وعن ونكسن صاحب يرسل هذا مقالكينا waxaan ku soo qaadan doonaa ama aan hadli doonaa tartan. Waa maxay tartan? Imsa qaybood ayuu soo qaybsamaa. Intaan muuqaalka u guda galin fadlan ka mid noqo walaalaha halkaan ku midownay muuqaalka noo la garay share-ta kaliya qaybtas comment u rab wixii tale tusaale mahadsanidin. Su'aasha koowaad waa maxay tartan? Tartan sidiisa waxa lagu qeexaa inuu yahay loolan u dhaxeeya laba qolo kuwaas oo leh hal hadaf oo isku mid ah. qolo walbana qolada kale waxay u rajaysaa guul daro si ay u guuleysato. Ganacsatada iyo dawladaha iyo dhammaan ruux walba oo min aadan waa mid tartan ku jira dhanka nolosha. Qof walbana wuxuu doonayaa inuu soo guuleysto, balse waxa guuleysto oo kaliya qofka sida dhabta u waran sheega tartankiisa. Su'aasha labaad, imisa qaybood ayuu ka kooban yahay tartanka? Tartanka qaybo ayuu ka kooban yahay aad iyo aad u farbadayn, balse waxaan soo qaadan doonaa 3 qodob oo kamid ah. Number koowaad oo ah midka tooska ah. Dadka sida tooska u tartamo waxa ugu horeeya oo kamid ah dadka ciyaarta feerka, lagdanka iyo banooniga. Dadkaas ayaa ah dadka sida tooska ah iskaga hor yimaada loolankana sidaas ku gala. Qaybta labaad oo ah tartan aan toos ahayn. Tartanka aan tooska ahayn wuxuu ka dhaxeeyaa dawladaha, ganacsatada iyo ardayda iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Qof walba wuxuu doonayaa inuu asugu guuleysto. Dawladdu waxay sameysaa in dawladda kale la gasho tartan dhan walba iyadoo masaalixdeeda ka fiirinaysa. Dawladdu waxay doonaysaa iyadoo si toos ah inaysan u wajihin dawladda kale ay si dadban u guuleysto. Waxaan u suurtageliyaa waa sirdoonkeeda. Sirdoonka ayaa ah dadka ugu badan ee shaqada dawladda qabto. Dawladdu waxay ku dadaashaa in sirdoonkeeda ay ku dhex mulmaan bulshada. Dawladdu sidoo kale waxay ku dadaashaa in waxbarashada, dhaqaalaha iyo dhanka militariga ay si toos ah u dhisto xitaa iyadoo aan la dareemin. Waxaad arkaysaa in dawlado aan markii hore saaxada dagaal ku jirin ay hadda saaxada dagaal ku soo biiraan. Waxaad arkaysaa dawlado aan markii hore hub sameey jirin balse hadda saaxada hub sameynta iyo ka ganacsiga ku soo biiray. Dhan walba oo nolosha way isbedeshaa. Midka saddexaad oo ah kala wareejinta. Inta badan waxaad aragtaa in kooxuhu markay ciyaarayaan oo garoonka ay ku jiraan in ciyaaryahanka laga soo baxsho ciyaaryahanka lagu bedelo. Dawladaha dhankooda daan fiirinana waxay ku dadaalaan inta badan inay dawladaas kale waxay kula gorgortami karaan helaan haddii wax u baahdaan si ugu bedeshaan. Ganacsatada xitaa waa sida haddii ay shay haystaan qofka kale shaygu haayo ay ugu bedeshaa. Tartanka kala wareejinta inta badan qof walba wuxuu ku dadaalayaa sidoo asugu u heli lahaa wuxuu qofka kale uga bedesho haddii uu danka yeesho. Waxaan rajaynayaa muuqaalka inaad wax ka faa'iiday. Waad mahadsantahay saaxiib haddii ila dhamaadka ay nala soo gaartay. Waxaan ku leeyahay waad mahadsantahay 100% ka mid noqo walaalaha halkaan ku midownay. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.